waxaan doonayaa inaan qodob ka ilaalo arrin maanta jaraa'idka ku soo baxay jariidada Sahar ciwaankeeda hore maanta waxaa ku qoran gudoomiyaha xisbiga wadani oo yidhi ha lagu wareejiyo talada iyo hogaaminta ciidamada qaranka Soomaaliya lagu wareejiyo guddiga doorashooyinka qaranka arrintaasi oo ka soo yeelay guddoomiyihii 12 sanood ee golaha wakiilada oo aqoon u leh dastuurka iyo dowladnimada oo ah musharaxa xisbiga wadani ee doonaya inuu dalka xukumo ma filaayo inay aqoonaan u geysay cabdiraxmaan dastuurka 12 sano ayuu ilaalinayay waxayna tahay inuu aad u garanayo dastuurka Somaliland iyo dastuurada caalamka oo dhan intooda badan waxaa ku cad qodobka oranaya ee sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qaranka sida oo dhan go'aanka cabdiraxmaan iyo xisbigiisu ay talada dastuuriga ay ku wareejinayaan ee ay ugu wareejinayaan hay-ad madaxweyne magacaabay aqoon darro kama aha xisbiga wadani iyo guddoomiyahooda waa nasiib darro in guddoomiyihii wakiilada ee shalay oo maantana ka mida golaha dhexe oo hogaaminaya xisbi qaran oo murashax qaranaya inuu jafka intaa leeg ee dastuuriga u baneeraa waa nasiib darro sharciyeed waxaanusa leedahay oo leeyahay arrintaa cabdiraxmaan garashawaa maahee ujeeddadu gulay uu ka leeyahay kuwaana la ogaan doona oo waa la arki doona waxaan leeyahay shacbiga Somaliland waa u feejigan yahay waa u ilaalinayaa qaranka dastuurka qaranka iyo qarannimada Somaliland intii ku xadgudubtana qaranka Somaliland baa u jooga oo wada arkaya in arrintaa qaranku ha ogaada halay ku dambayso tahay taas